فرصنا مو اسكا بعدين بركاته بعد السلام saaka saacadu markii ay ahayd 12 iyo rubuc goornimo ayaa waxa ay soo xiriiray aniga oo gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Afgooye idaacada la yiraahdo goobjoog oo wada shaqeynay oo shaqeyn xoogan ay ka dhaxayso maamulka gobolka Shabeellaha Hoose wariye kamid ah la yiraahdo Maxamed goobjoog la yiraahdo ayaa la soo xiriiray ina sheegay in wariye kamid ah wariyaasha goobjoog shalay la afduubtay isla markaana oo la soo xiriiray asiga oo fakaday cadaawadi afduubatay ka fakaday oo la soo xiriiray idaacada wariyaas oo aan garanaynin isla markaas goobta oo ku sugan yahay aan garanaynin inta markuu soo gaarsiiyay ka bacdi ayaa waxaan sameeyay baadidoon eelida la igu tilmaamay ayaan baadidoon ka sameeyay waxaana ilaahay la kulmiyay in aan helo dad gacanta ku haya oo ayaguna baqaya meel degmada u jirta ilaa iyo 5 kilomitir degmada Afgooye u jirta ilaahay baa mahad iskale danaga waxaan noo doorto in shacabka aan maanta nafteena u biimayno waan u biimayay isla markaas goobtii markii aan kula kulmay ninkii oo silsilad ku xiran oo aad u doorfaysan hadli karin waxaan wacday taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee degmada Afgooye saldhigga booliiska degmada Afgooye ayaan wacay waxaan la xiriiray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose waxaan la xiriiray gudoomiyaha degmada Afgooye oo taleefankiisii oo ii bixi waayay kadib markii aan helay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo taliyaha saldhigga booliiska iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay fuudaatay in aan maaragtay sidaa aan ku wada xiriirno kuna wada shaqeyno aan dhamaan sidaas talo wada jira ku soo gaarsiino taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaan sidaa ku soo gaarsiino iyadoo uu madaxweynaha gudoomiyaha gobolka taliyaha ciidanka qaybta booliiska gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha saldhigga booliiska degmada Afgooye sidaas ayaan ku soo gaarsiinay hanad oo aad u jeedaan dhibaatada ka muuqata anaga waajibaadka noo yilaadii aan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose heer gobol halkaan ayuu nooga egyahay marka biidnillaahi taala insha Allah waxaan ku sii wareejin doonaa hadii Allah uu raali ka noqdo gudoomiyaha gobolka oo aad iyo aad uga qayb qaatay arrimahan una dhiirigeliyay in aan meel kasta arintaas ay ila gasho aan la galo inuu dhiirigeliyay aad u mahadsan yahay meel aan wali tagin oo aan wali tagin oo ka baqay jiray ayaan saaka tagay ayadoo gudoomiyaha amray uu leeyahay soo ma naga kartid oo leeyahay ilaahina wuxuu ii sakhiray inaan warihiina asigoo maaragtay nool aan maaragtay aan soo badbaadiyo aniguna aan ka soo badbaado ilaahay baan soo badbaadiyo dhamaantaynaba waxa way dawladuna waa kala dambeyn hadii aan maanta dheeraa gudoomiyaha meesha ma geli karo hadna inuu soo badbaadin ayaa dhici karta ilaahay xukunkiisa waxba ku ahaanayaan anigoo qaatay awaamirta gudoomiyaha gobolka waxaan go'aansaday ilaahay baa wax dila inaan aniguna walaalkayga sida aan soo badbaadi lahay aan maaragtay wax walba u horo ilaahayna waa igu sharfay waana igu soo karaamiyay waana keenay waxaan ku soo wareejiyay gudoomiyaha gobolka hadda sida aad u jeedin bahada u jeedin waa in aad u qabo hadda waxaan ku wareejinayaa insha Allah wixii aan dhamaystira gudoomiyaha gobolka oo aad iyo aad arintaas u qiirooday dhiirigelin aan cadeeyna iga siiyay ilaa saaka amar idin ligay hadba inuu amar siiyo ma moodaba marka dambayso culeey soo ma noqon kartid amba soo dhiba amba keen wariyi ha marka insha Allah aad u maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh booliska Soomaaliyeed heer gudba walaalaha Soomaaliyeed halkaan jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh السلام ورحمة الله waxaan soo dirtay waxaan ma dhihi doono ilaahay baa mahad iskale oo runtii gacanteeda uu ka soo badbaadiyay annagana loo fududeeyay isagoo bad qaba inaan maanta ku soo wareejino taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu madceliyo bahda saxaafadda bulshada idin sheegay indhaheeda waa warbaahinta muddo fara badan ayaa waddankan ku soo hubayseen naftiina aad u soo runtii khatar u soo gelinayseen Soomaaliya heerka ay joogto maanta ma gaari lahayn haddii warbaahintu aysan qayb ka qaadan lahayn walaakiin isagoo gurmudkii abaaraha bulshada Soomaaliyeed oo dhan saameyn ku yeelatay howlqalmeedkiisa ku jira ayaa cadow gacanta runtii uu galay oo Soomaaliya oo dhan ka lahayn waxaan rabnaa haddii hal meel looga soo wada jeesto ayaga oo dhan Soomaaliya ma baabi'in karaan shacabkeeda ma baabi'in karaan Soomaaliya way jiraysaa shacabkeedana way jiri doonaan kuwa warbaahinta ka soo horjeeda shacabku u adeegaya dowladnimada Soomaaliyana ka soo horjeeda insha Allah taala ayaga ayaa baabi'i doona inaan isgacan qabsano waan idinkaga mahadcelinaynaa runtii khatarta joogtada aad ku shaqaynaysaan oo shacabkiina iyo dowladdiina iyo Soomaalinimadii iyo wadaniyadii
aada uga adeegeysaan inaad sii joogtaysaan idinku asanaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kalama saaraya booliiska iyo maamulka iyo shabeellaha hoose way dhammaan saxaafadda booliiska dhammaan waxaan ku salayaa salaatu wasalaam. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. annaga waxaa nooga furan laba qodob aa nooga furan. maamulka gobolka shabeellaha hoose dhammaantood waa u mahad celinaynaa sida wanaagsan ay u soo badbaadiyeen weliya xanad. weliya xanad riboorkiisa waa la soconnay shan markii la qafaashay ilaa iyo halla xaaladiisa waa la socon. insha allahu saa uga xarmayn annaga baaristiisa inaan xilnaan jecelnahay dadkii dhibkaa geystay. waa la baaraya waana la heli doonaa amarta insha allah haddii ilaaha yidhaahdo. qofku inta dembi gala haddii sidaa looga haro hadda soomaali baacidaan baa lagu wada baabeynaa. marka insha allahu booliis ahaan annaga waa helaynaa kana xarmayna ilaa afarta u dambeeya aan soo helno. hadda xilliga la joogana haddii ilaah yidhaahdo nabadgelyadiisa mas-uuliyaddiisa annagaa iskale. annagaa isbitaal geynayna annagaana nabadgelyadiisa ka mas-uula. laakiin dhammaan waxaan ugu mahad celinayaa oo si gaara ugu mahad celinaya maamulka gobolka shabeellaha hoose sida wanaagsan ay u soo seerbareeyeen u keeneen u soo xamaaneeyeen. waa ugu mahad celinayaa. marka guddoomiye maamulkaada iyo booliiskaada dhammaantiinba waa idin mahad celinaya insha allahu. wariyaashaan soomaaliyeed hadda waxaa waaye haddana adinkaa laydinka rabaa in aad wax walba ka hadashid, wax walba siday taa u sheegtid. wax uu hadleeyay iyo cid xoola ka qaba iyo cid askari dowladeed maaha wax lagu qafaashay maxaad saxaafadda u sheegaysaa wey waa idardaro. marka waa mahadsantiin adinkana dhammaantiinna waa idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.